sidan ayuu u ammaanayay maamulka Puntland iyo weliba Jubbaland. maamuladii la saxnaa 2022 waa la qaldan yihiin. markay ka soo horjeedeen farmaajo, Axmed Madoobe iyo Dani waxay ahaayeen dad haliyey ah oo qaranka u hiiliyey sidoo kalena dowladnimada ilaalinaya. laakiin markay xasan sheekh ka soo horjeedaan waa dad qaran dumisa oo aanan mudnayn in la amaano ama la bogaadiyo. magaalada Gaalkacyo maanta waxaa ku wajahan ciidan dhanka Puntland oo xoojin doona ciidamada Gaalkacyo si looga hortago wax kasta oo dowladda federaalka Soomaaliya ka yimaada oo laga soo dusiyo dhinaca magaalada Gaalkacyo. ciidamada Puntland ee ku sii jeeda magaalada Gaalkacyo ayaan sidoo kale dul istaagi doonaa, faahfaahin doonaa iyo sababta keenaysa xuduudda ciidanka Puntland in loo kordhiyo dhanka magaalada Gaalkacyo. shaha ciidanka Puntland ee Gaalkacyona waxa uu ku soo beegmayaa xilli magaaladaasi ay ka socdaan ole isugu jira mid siyaasadeed iyo mid ciidan oo si qarsoodi ah Gaalkacyo loo keenayo. maanta Axmed Macalin Fiqi wasiirka gaashaandhigga ayaa imaanaya, laakiin taa micnaheedu maaha wafdi kaliya in Gaalkacyo ay tagayaan ee waxa ka horeeya ka dambeeya la socda hub qarsoodi ah oo Gaalkacyo sidaa lagu geynayo. si aanan hubkaasi loo ogaan ayaa lagu dhex qarinayaa wafuudda ololaha Liibaan Shuluq, laakiin Puntland arrintaasi way ka warhaysaa. askarigii maamulka waqooyi bari ee Faysal Cabdi Bootaan qabtay ayaa qamri intuu cabay isaaq isku dhigay. shalay ninkii ku faanayay Faysal Cabdi Bootaan aan qabtay markii qamri dhacay uu cabay intuu is-iloobay ayuu yiri qarankayga Somaliland baan isku dhiibayo ka mid ahayo, lagama yaabo intaa in ka badan inaan sii ahaado maamulka waqooyi bari. waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed iyo dadka uu qaldayo uu isku dhiibayba aan xusuusiyo maalintuu ku faanaya qabashada Faysal Cabdi Bootaan. qof bilaadan soo istaagay ugu soo riyaanaha saasan soo istaagay waxaan arkay ninkii noocaas inuu yahay doosan waxaan ku Cabdi Bootaan meedanayn meehibil Cabdi Ismaaciil baa leeyahay ma ku qoraya waan ku leeyahay Cabdi Bootaan tahay هذا الشيء اللي هذا صار لايف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المأسستين صحافة أنا وحولي عبد العزيز حسن محمد حكت السنة إذا بدأ يصير خطوة أكن نور غضب ونصف فلسطين أو أندونيا صحافة الدنيا ينتقل بشدة داون طبيعي ينتقل على بعض ولا أو وقت بدو ما تضيع في الطاقات دول بيش أضيع كلا اللي بيش أضيع في سنة كبيرة دول بيش أكلا wuxuu ilowsan yahay isaaqu inaysan waxba iloobin. wuxuu ilowsan yahay isaaqu in ay cuqdad ka samaysan yihiin dadkii iloobi waayay 88 ee ilaa iyo hadda xusuusta ma iloobi doonaan ninkii shalay Faysal Cabdi Bootaan gacanta ku dhigay. barnaamijka ayaan ku iftiimi doonaa qodobo aad u muhiim ah oo salka ku haya arrimaha ka dhex taagan weli waqooyi bari iyo Somaliland. waa ku qasban yahay firdhiya shacabka reer waqooyi bari inuu qareeyo runtan u sheeg. reer waqooyi bari waxay u baahan yihiin xaqiiq dhanka xafiiska firdhiya. maxaynu ka faa'iidnay madaxweyne xasan sheekh? war maxaan xamar ka faa'iidnay? war maxay noo tareen Xamza iyo xasan sheekh? maxay nala garab taagan yihiin midnimadii aynu u dagaalanay ee aan xamar geynay? maxaynu ka faa'iidnay sanado kadib? waxaan rabaa bal inaan dul istaago firdhiya qancinta shacabka waqooyi bari ay ka sugayaan ma laga filan karaa. madadaalada xafiiska xasan sheekh iyo Xamza ay reer waqooyi bari ay weli ku hayaanna waan dul istaagi doonaa. guud ahaanba xaaladda siyaasadda dalka iyo xaalka marxaladda masiirkii ummadda Soomaaliyeed ee mar kale kambaalo loo raray ayaan sidoo kale isla eegi doonaa kuna iftiimi doonaa barnaamijka hadduu alla idmo. intuu barnaamijku socdo macluumaadka taagan xaaladaha xasaasiga ah ayaan isla eegaynaa. kusoo dhawaada barnaamijkii oo faahfaahsan afeef anigu wariyaan ahay xaqiiqdaan iftiimiya wixii jiraan shaaca ka qaada aniga shaqadayda haygu hifin. soo dhawaada 2021 abaal weyn ayay Puntland iyo Jubbaland ba u galeen siyaasiyiinta Muqdisho ama siyaasiyiinta Hawiye. waxaa xusid mudan in madaxweyne Dani iyo weliba madaxweyne Axmed Madoobe ay culays badan ka saareen siyaasiyiinta Hawiye. sidaa darteed iyadoo xaalka farmaajo uu meel xasaasiya marayo ayuu Dani u gurmaday xasan sheekh iyo xulafo siyaasiyiin Hawiye ah. waxaan ogahay marqaati ka ahay la iska qari karin
la iska indhatiri karin sida wanaagsan walaalnimada saaxiibtinimada leh oo Axmed Madoobe iyo Dani ay abaal ugu geysteen siyaasiyiin uu ka mid yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. waxaan xasuustaa ammaan iyo bogaadin uu mar kastaba shirka jaraa'id ku sheegi jiray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu u mahadcelinayo siyaasiyiin ay ugu horeeyaan madaxda Puntland iyo Jubbaland taasoo ka dhigan abaal taariikhda galay in labadaasi maamul ay hawiye iyo siyaasiyiintoodaba ay la garab istaageen. kala ammaanayna bogaadinayna ragga siyaasiyiinta ah ee mowqifkaas horay u qaata ayagana oo ay ugu horeeyaan labadaas dawlad goboleed ee Jubbaland iyo maxaan ku raada Puntland ee mowqifka qaatay ee dastuurka ma dhamaadaha bas dastuurka sidoo faaha la yeelo aan ka heshiino mushkiladan noocan hor u soo dhacday inaanay mar daba dhicin rabnaa horay loo socdana waa rabnaa abaal ninkii gala in loo gudo garweeye haddii Xasan Sheekh uu sidan u amaanayay inuu 2026 uu ayaga duulaan ku qaado waa munaafiqnimo waa ballanka bax waa qaladkii ugu weynaa. Puntland iyo Jubbaland ilaa iyo hadda madaxweynayaal waxa ka ah kuwii uu Xasan Sheekh noo amaanay. Siciidana waa Siciidanigii, Garowe waa Garowadii, Axmed Madoobe waa Axmed Madoobihii, Kismaayo waa tii loo kala cararayay ee diyaaradaha ciriiriga loo korayay oo hawiye u wada yaacayay magaalada Kismaayo. magaaladii isma bedelin, madaxdu waa kuwii in maanta nalaga dhaadhiciyo oo nala yiraahdo shalay saxnaayeen maanta ay qaldan yihiin aqliga saliimka ah ma ogola. haddii Axmed Madoobe uu shalay saxnaa maanta waa saxan yahay, hadduu Dani shalay saxnaa maanta waa saxan yahay. annagu la jiifiyaano bannaan la joojiyaano bannaan cid aan ka dhagaysanayno ma laha. runtu waa qaraar tahay xaqiiqdana mid la iska indhatiri kara maaha. abaal male madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud calaamadaha munaafiqa lagu yaqaan weeye. marka waxaad moodaa wax aan jirin ama dadkan social media ka shaqeeya waxay yiraahdaan waa prank wax yani kasmaatiga aan jirin inay ahay taasa ku tusinaysa 6 bilood baynu siinaynaa labadooda because fadhiyana dabeecadiisa waa la yaqaanaa magaalada taal Abdi Rashid abwaana dabeecadiisa waa la yaqaanaa Garowana waa taal muxuu ahaa Baranna waa taal sida wada shaqeyn lahaayeen baa loo baahan yahay groupka kale ee soo haray xildhibaanadii waa tahriibayaan meeshana waa ka tagayaan. runtii siyaasiga ka soo jeeda deegaanada waqooyi bari dhowr marna federaalka Soomaaliya xilal ka qabtay safaarad ka soo shaqeeyay waa nin xog ogaala. xog ogaalnimadu maaha marka in mucaarad la noqdo maaha. hadalkaa wuxuu sheegay muddo aad u fog laakiin maanta waxaynu aragnaa intii uu tilmaamayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud meel kasta oo maanta garab iyo gaashaan looga noqday sila iyo dhibaato ayuu baday. in la kordhiyo xildhibaanada maamulka waqooyi bari talada Xasan Sheekh ay ahayd bal munaafiqnimadiisa inta xildhibaanadii kordhiyay ayuu haddana ballantii uga baxay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. war haddaad ballanta uga baxayso maxaad u tiri hal la kordhiyo si isku waafaqaysaa hal la kordhiyo iyo ballantii waa ka baxay. hal la kordhiyo ballantii waa ka baxay. xildhibaanadii mushaar looma hayo, ciidankii mushaar looma hayo. Xasan Sheekh Maxamuud ayaana laysku xirayo markii horeba jihada Xasan Sheekh Maxamuud baa la saaray. hadda madaxweyne Firdhiye waxaa laga rabaa inuu jawaab siiyo madaxda iyo weliba shacabka maamulka waqooyi bari. maxaan Xasan Sheekh iyo Xamse ka faa'iiday? Xasan Sheekh iyo Xamse maxaynu ka faa'iiday? ayagaa harti nagu diray, ayagaa Puntland cadow nooga dhigay, ayaga ayaa mucaaradkii Xasan Sheekh Maxamuud nagu soo jeediyey. ciidan mushaar looma hayo, xildhibaan mushaar looma hayo. intii ummadda garab iyo gaashaan u ahaydna Xasan Sheekh Maxamuud ay ka doortay. madaxweyne Xasan Sheekh qof loo dhiman kara ma yahay marka. ninka yiri xuquuqda Hargeysana waan ogolahay, xuquuqda waqooyi barina ma ogoli. ma ninkaasaa loo dhiman karaa? ma ninkaabaa sumcad darro iyo walaal la'aan loo noqon karaa? ilaan Xasan Sheekh wuxuu rabaa inuu cadow uga dhigo maamulka Puntland. wuxuu rabaa inuu harti gudihiisa cadow uga dhigo. ma loo dhiman karaa qofka? siyaasiyiintii mucaaradka ahaa ee ka soo jeeday Puntland Xasan Sheekh laba farood buu u tagay. maanta ayayna u bilaabanaysaa
inay la yimaadaan awood qalqalgelisa Puntland iyo in uu iyaga faraha ka qaadayo dagaalka Puntlandna uu joojinayo barrina aynan xaggiisa qiimo ka yeelan doonin ama dagaalkan idinkaga baxa ama Puntland burburiya haddaad Puntland burburi weysaan dagaalkii waa ka baxay laba dara mid doonaa haysata Puntland aan burburinaynaa xasan sheekhna waa la kasbanaya haddii Puntland burburi waayana xasan sheekh maxamuud cid uu isxaan u haya ma jiro magaalada gaalkacyo runtii dad walaala ah oo wada dhashay ehel ah isguursada isku dhexmilan ayaa gaalkacyo ku wada nool sacad waa majarteen waa sacad waa wiil iyo abtigii laakiin madaxweyne xasan sheekh wuxuu rabaa inuu dagaal kala geliyo waana xasuusanaa teeramkii ka horreeyey dagaalkii uu u horseeday dadka deegaankaasi degan mar kale ayuu dagaal rabaa inuu gaalkacyo ka kiciyo hub qarsoodi ah baa gaalkacyo la soo gelinaya waxaa lagu dhex qarinayaa kaambeynka libaashuluq iyadoo loo adeegsanayo diyaaradaha muqdisho ka imaanaya shacabka ama siyaasiyiinta in diyaaradahaasi si qarsoodi ah ay hub u geeyaan magaalada gaalkacyo maanta ama berri wasiirka gaashaandhigga tegaya axmed macalin fiqi oo gaalkacyo ka soo jeeda kana mida dadka uu xasan sheekh maxamuud u adeegsanayo colaadda galmudug iyo Puntland uu hadda qabanqaabinayo Puntland deegaankeedii difaacanaysaa ciidanka kusii qulqulaya magaalada gaalkacyo cid uu duulaan ku yahay ma jiro laakiin hubka sharci darrada ee xasan sheekh uu ka soo dusinayo gaalkacyo unbay shacabkooda ka hor istaagayaan waxaa la ii sheegay in wasiirka gaashaandhigga uu karkari doono deji doono hadalkii libaashuluq ee u eka hadal wanaagsan laakiin fiqi maanta ama berri markuu gaalkacyo tago waxa uu ka dhex abuuri doonaa nacayb iyo dagaal sukeeya dadka halkaasi degan aflagaade iyo gab meel ka dhacaan loo aaba yeelin waana meesha ay arrintu ka qurbi doonto dadka dagaal uma baahna waa dad wada dhashay laakiin maanta ayaa la rabaa in dab lagu dhex shido allo salaam walaha askarigii waqooyi bari ee Faysal Cabdi Bootaan gacanta ku dhigay ee ku faanay ee meediyaha la wadaagay inuu ku faraxsan yahay qabashada Faysal Cabdi Bootaan ayaa la ii sheegay ama aan aragnay shalay isagoo oo isku dhiibay ciidanka Soomaaliland isaaqii ayuu isku dhiibay waana isaaqii uu shalay Faysal Cabdi Bootaan uu qabtay dadka la wadaagay mashalo walaa ma samaantu waleeyahay qamri dhacay ayuu cabay qamrigaasna balaayu leeyahay balaayu haddaad dhalada iska kormariso cadowgaaga iyo saaxiibka kale ma taqaanin gaari nooha oo meesha ka qaatay halkaasuu ka baxay ciidamadii Soomaaliland isku dhiibay isaaqii uu shalay lahaa Faysal baan qabtay uu ku faanayay ayuu maanta gacanta ugu jiraa annagana maxaan ugu taqaanaa qof walba oo Soomaaliland u gala annaga waa fashilinaynaa doofow qof bilaadan soo istaagay ugu soo riyaanaha saasaan soo istaagay waxaan arkay ninkii noocaas inuu yahay doosan waxaan ku inaad Bootaan meedanayn ma hibil Cabdi Ismaaciil baa leeyahay waxaan ku garanayaa waan ku leeyahay Cabdi Bootaan tahay هذا الشيء اللي هذا صار لايف بسم الله الرحمن الرحيم هذه والمازتين صحافة أنا أقول حاليا عبد العزيز حسن محمد حكت السنة عندما يسيس خاطبه أكن نور غضب ونصف رسي أو أندونيا صحافة الدنيا ينتقل بشدة داون نطلع ينتقل بحرم بعان لو أو وقت بدو ما تضيع في الطاقات دو دي بيش ضيع كلا لحد بيش ضيع كسبك بيقولي دو دي بيش كلا dadkiisa biyo ugu soo galay ha ka xaxaabiyo haddii isaaq faa'iido leeyahay ha ka xaxaabiyo meeshuu galo ayaan arkaynaa isaaqu waa dad aad u cuqdad badan dadkii iloobi waayey 88 miyaa maanta iloobaya wixii dhacay 2023 waa 3 sano ka hor odagu gacanuu ku jiraa islaamtii fihimo quujo ahayd isaaq waa fahamsan yihiin meesha waxay u timid inay tahay sirdoon dhaqaala doon oo aynan marnaba ku nagaan doonin magaalada Hargeysa waa la ogyahay islaamtu dee iimaan male fiimo quuje meeshay wax ka liqi karto unbay ka liqdaa marka isaaq waxay bilaabeen inay gadaal uga durqaan hadiyada yar oo kooban oo aanan xitaa iyada iska daayay aynan astaahilin qof iska caadi oo xitaa Hargeysa booqday ayaa loo geeyay gacanna waa la isaga ilaalinayaa gacanna waxaa la isaga dhigayaa in lagu soo dhaweynayo dadka waa dadka fikir horeeya fiimo quuje maxaa yeelay qofka doqonka ah
waxaa lagu yaqaanaa qofkii shalay dhaawaca iyo meydka beelweynta isaaq jarjarayay inuu isaaq marti u noqdo doqonnimo qofkaasi u dhiman wallahi inaysan jirin weliba shacabka beeshaa ka soo jeeda isaaq waxaa laga dhaadhiciyey ina cambaasho waa inoo xiran yahay laakiin waxay arkeen ina cambaasho oo iska barwaaqaysanoo nin xabsi ka soo baxay aan u ekeen oo tuutihiisii wata gabadha fiiba ku jira garab taagan isaaqii waagaa ku baryay meel kastaba marxalad adag baa ka jirta balse waxaan leenahay halka ay arrinta ku biyo shubato isha ayaan ku hayn doonaa hadduu alla idmo siyaasaddii soomaaliya masiirkii dalka dib buu soomaaliya u celiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud aad bay nasiib darro u tahay maanta inay shacabka dhagahooda ku maqlayaan madaxweyne xasan sheekh oo dib u socda isla markaana eegaya wax lumay oo weliba qaran soomaaliyeed dhabarjab u ah madaxweyne baahan markaanu qoorta la galnay ceeb mooyaane ma faa'iido kalaan ka sugaynay bal wixii ku soo kordha xaaladaha siyaasadeed ee dalka waxaan insha allah kugula wadaagi doonaa barnaamijyada isdaba joogga ah ee aad mar walba ka daawan karto youtube-ka nabadgelyo